السلام عليكم أصحابتي soo dhawaada khudaartan maanta waxaa ka rabaa biibso oo hilib ah iyo rooti dhaxda hilib laga gelinayo intaana ka kooban tahay khudaartan ku dari rabana waxaan qasanaynaa biibsadeena hadda waxa u baahan tahay marka ugu horeyso kiilo buraaqasooya waxaa inta ku daray uqunta ku daray caano boora ku daray waxaa kale ku daray leebato ama fixiso waxa uu ka siisin iyo xoogaa sokor ah waxaa kaloo ku daray saliid biibsada iyo rootiga hal qasitaan qasooya burkeyga badsaday marka in igu filana qastay waxaan ka rabaa rooti dhaxda hilibka laga gelinayo waxaa kaloo ka rabaa rooti bila hilib la'aan ah waxaa kaloo ka rabaa biibso intaan ma fahamteen si fiican u soo xashay si fiican qasitaanku waa muhiim daboolka dhakabku si saliida korka mari kadib maxaa karsanaa birtaawa saartay baradho oo si yar yar u soo jarjaray baradhadan waxaan ku karin rabaa yacni rootiga aan dhaxda hilibka ka gelin rabo ay iga saacideysaa baradhadii jubbaan ku daray wax yar cusbaa ku daray waa shiila ma fahantay wasdax marina waa shiila si fiican u shiila asxaabteydii maadaama aan muddo badan maqnaa horta soo dhawaada wax oo yacni dhibaato uma maqneen hoola adduunyo kala iska galay ma fahteen baradhadeena waa ii soo kartay hadda gaduuda isku soo bedeshay waa ka dajiyay waxaa ku soo tuuray soo gaduuda ka soo tuurtay meeshan baradhada aan soo shiilay waatana rootiga dhaxda gelina barbarooniga hilibaan soo shiiday iyo karootadiisa basasheeda waatana waxaa kaloo ku daray xawaajiga burkisa uu soo qamiiro marka waa ka buufa ku dhaw wax yar basbaas eena xagga iyaalan iyo filfilkeyga iyo jubbaha fahanteen marka waxaan diyaarsanaa weelashii aan ku karsan lahaa yacni rootiga aan saari lahaa biibsada aan saari lahaa ayaga dhana diyaarsanaa waxaan ila wadaagoyaa hadda xabadkii ugu horeeyaan ila wadaagoyaa waa ka asxaabay weelkii mar walba uu dadaal haddii aan xaanshada la haysanin oo weelka loo dhaxaysiina haynin waxaa soo bisa saliid iyo bur dhakabku sii yacni maba ka halaabayo asxaabay waxaan u malaynaa af soomaaliga inuu iga dhudhumo ani maadaama aan raxweynta afkooda aad u bartay afkeygii iga dhumoyo ma fahanteen dib ha u arkina haddii aan gaja ku hadlo hilibkii jubbo ku daray iyo xawaajigii yacni wax kale kama maqna iyo basbaas yara ku daray basashii iyo barbarooniga soo diyaarsaday barandada imaaday ma fahanteen jikada kuleel ileen foornan ku shidi rabaa foorno aan ku karin rabaa alaabahan markii hore ayadoo jiko lagu karinayo waan soo geliyay asxaabteydii cidii aan foorno haysanin ha ka soo faa'iideysato mar badan jikaan ku soo kariyay ma fahanteen muhiimaddu waxay tahay qaabka aad burka u qasanaysid ee qaabka wax u gelinaysid waa inaad fahantaa hadda rootiga oo aan diyaarinayaa oo dhaxda hilibkii khudaarta laga gelinayay geesahan iyo kaasoo waxeysmin geesahan si fiican u laabo ma fahanteen si fiican u laabo dhakab markaa siisid soo gidi markaa dhakab markaa siisid waxaa la rabaa inuu kaasa oo ka furfuranin rootigaaga inuusan ka furfuranin kadib waxaa u suubinaa wax yar nashqad ah nashqadan yar waxay ka caawinay rootiga qurux uu noqonaa fahantay qurux uu noqonaa inuu soo qamiira rabaa maadaama haddaad qamiir ahaa weelkana ku diyaarinaa waxaa rabaa inuu zaaid u soo barbararo oo yacni wasiga dhan iga noqonin mid oo hadhow cadiin ah noocan labaadan ii sheegaa noocan waxaa la dhahaa baana ool iyo rooti kuskuus asigana saas oo isku qabanaa waa isku keenahan ku dhahay laba xabo iyo saddex xabo aan ila wadaagoyaa wax kaleente ilan videoga igu badanayo ma suubin kara asxaabteydii fiilamaad waa kana asaas u soo diyaarinaa asigana qaybtii kaleente waa soo diyaariyey inta waxaan kaloo kusii diyaarinayaa biibsadii waatana ayadana durdursay hadhow usoo neefsanin oo kor usoo bararin soo durdur saas usoo diyaari waxaa marka aan saaraynaa khudaartii ay ii wada diyaarsaneed dhakab lagu siinaa si fiican يعني خفيف نكده
iyo cadiinka noqonin fahamtay. waxaa ii diyaarsaneed marka inta baradho waxaa ii diyaarsan iyo yaanyo shishiid iyo cusbo iyo waxaas ku soo dardaray adiga yacni suugo gaduud waa fahmi kartiin amaleena. waxaa kaloo ku daray hilibkaasa ku daray. waxaa kaloo ku daraa baradhadii kaleento oo sheeg rootiga oo yaryariiska ahaa ayadana kor ugu daray. basal iyo barbarooniya dhakab lagu siina fahamtay. biibsadeeda diyaaray ii tahay anay barbaroonigayga ku darsaday wax ka dhiman malahan. waxaa kale oo ka dhiman leh yaa in foornada yub lagu siiyo. rootigana waxaa ka dhiman in kor ukunta laga mariyo. anta waxaa igu diyaarsan ukun iyo caano booro aan isku soo tumay isku soo garaacay ameeshan igu diyaarsan. ukuntan iyo caano booraha burishka loo qabsanaa rootiga marmarinoya rootiga dhexdiisa kan isa rootiga hiliba ku dhex jiro kaas foornada bismillaah kana ku bilaabay asxaabteydii. rootiga mar walba la soco kuleelka waxaa u geeyay 250 u geeyay daqiiqadana waxaa u geeyay 30 daqiiqo. kadib koray wax yar gaduud oo madow noqon faantay. waa ka maasha Allah qurux soo baxay. waxaa kaloo geliyay midkii labaad asna oo hilibka ahaa geliyay. waxaa maasha Allah soo noqonaa wax yar bal asaas waaye. hadda ku celiyay hadda diyaar u yahay waa soo bixiyay asxaabteydii gaduud lagama sheekeyn karo. markasta foornadaada la soco kuleelkeeda hadday kor gaduud ka noqoto kor kadami hoos u shid hoos hadday gaduud noqoto hoos kadami u shid. waxaa kaloo qaladka ee foornadan biibsada marka ay gelinayso dhulka ha dhigin saas dhulka ha u dhigin. waxaa suubinay shabaqeeda saaro cidaan ka sayna faa'iidooyinaya ma fahanteen. wali rooti kaleenta ay dhiman biibsadii ay gashtay haddana maasha Allah biibsadeedu way iga soo baxday diyaar waxay noqotay mid qurux badan. manqas oo loogu talagalay ii yaalo manqaskaas ku jiro dhooyaa kaali aragan ku dhahay maasha Allah asxaabteydii. foornada inaba caadi ma ahan. biibsada anagoo ku karinaya xataa dab youtube-kayga waa laga helaa dib u raaca yacni doorada si oo qaabka oo loogu karinayo ii sheeg iyo dabka sida loo umtaateynayo wax kaste ayuu nooc waa ka helay. haddana foorna tijaabinooynaa fahanteen asxaabay. kusoo dhawaada maadaama aan muddo badan ii maqnaa waan soo laabtay asxaabteydii. markaa xagga oo commentiga waa ku wada mahadsantihiin. like-tana si fiican iga soo dhisa subscribe fiican ii saar asxaabteydii intii hore ila joogtay iyo intii hadda igu soo siyaadayba maasha Allah. rootigii marka zaid uu soo kuuskuusamay dhexdiisa hilib ka buuxa. kan nooca koowaad waa kana tan labaad biibsadan waaye kor iyo hoosan ku dhahay way shidan tahay. nooca saddexaad waa kana rootigan dhexdiisa hilibku ma jiro nadiif. waxaa lagu cunaa marka maraqaas yar oo soobsaday maraqaas yar iyo hilibkaas dhakab lagu siisanaa maasha Allah. kusoo dhawaada asxaabteydii maadaama aan muddo badan ii maqnaa welcome. intana salaatada yar ku jiro xoogaa bisbaasan ku dhahay waa uu kala daadanayo xataa waa kana rootiga kor iyo hoos gaduud lagama sheekeyn karo.